abaaraha iyo macluusha ka jira geeska Afrika ayaa qoyska ku khasbay inay sameeyaan xulashaan suurtagal ahayn kadib markii ay dhamaadeen xoolihii ceelkii tuuladuna uu guday ayaa Cabdiqaadir Xuseen waxa gabadhiisa yar ee quruxda badan ee 14 jirka uu siiyay nin wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters Catherine Haral iyo Sohra Ben Samra oo suxufiyad sawir qaada ayaa la kulmay Zainab iyo qoyskeeda waxaana markii dambe sheekadani la wadaagay wargeyska International Business Times ee ka soo baxay waddanka Ingiriiska ninka gabadha daahan ka weyn ayaa $1 oo Suuriya waxa uu siiyay qoyska lacagtaasi oo qoyska gaarsiin karaysay $1 oo ah magaalo ku taala xuduudda waddanka Itoobiya halkaas oo hay'adaha gargaarku ay cunnayo biyo ku siinayaan dadka ay saameysay abaartu Zainab ayaa waxay diiday guurka ninkani iyadoo sheegtay inay jeclaan lahayd inay dhimato oo ay baxsato duurka si ay u cunaan libaaxyadu intii lagu khasbi lahaa guurka hooyadeeda ayaa mar dambe go'aankaasi ka noqotay qoyskani ayaa waxay lahaayeen lo ari iyo 3 dameerood dhammaan xoolaha ayaa dhintay waxaana Zainab ay noqotay rajada kaliya ee ku baxsan karayeen muddo bila ayay diidanayd guurka ugu dambeynna waxay ogolaatay talada ay sida weyn isugu raaceen qoyskeedu hooyada dhashay ayaa sheegtay iyadoo gabadheedu ay ku fadhido dhagax agteeda inaanay doonaynin gabadha la khasbo waxaana ay sheegtay in jahawareer ay ka qaaday ay indhuhu ku daaleen ugu dambeyn Suuriyada ayaa la qaatay waxaana loo dabaaldegay guurka laakiin Zainab ayaa baxsatay 3 maalmood kadib markii qoyskeedu ay soo kireysteen gaari ay ugu guuraan $1 oo u jirta 40 kiiloomitir waxaana sii raacay ninkii guursaday isagoo codsaday in gabadha loo soo celiyo ama lacagti gabadha ayaa waxay sheegtay inay hesho fariimo ku dalbanaya lacag ama inay la joogto oo wahaado ninkeeda Zainab macalinka u dhigi jiray af Ingiriisi oo la yiraahdo Cabdiwali Maxamuud ayaa geeyay xarun ay leedahay hay'adda gargaarka ee Talyaaniga ee Cooperazione Internazionale madaxa hay'adaasi oo qayb ka ahayd wafdi ka socday midowga reer Yurub ayaa faragelisay arrintani deeqa warsame waxa shaqaalaheeda ay u soo jeedisay inay ururiyaan si lacagtii Suuriyada hay dib loogu bixiyo laakiinse waxay shardi uga dhigtay in ninkaasi hadii uu doonayo in lacagta la siiyo in marka hore uu gabadha ku furo goob ay ku sugan yihiin markhaatiyo Zainab Cabdiqaadir Xuseen waxay u sheegtay wariyaasha in waqtigani ay dareemayso xorriyad